gadhexe ciidanka asluubta degmada garada goomudooyinkii ugu dambeeyay ku talaabsaday harumar aad u ballaaran kaasoo uu suurta galiyay taliyaha guud ee ciidanka asluubta gobolka Sanaag gaashaanle sare Maxamed Digaale ayaa saaka waxa ka warbixiyay taliyaha ciidanka asluubta degmada garada Kabtan Xuseen Yuusuf Xaaji Barre isagoo sheegay inay weli jiraan dhismayaal socda iyo mashaariic qabyo ah waxayna goobtaasi ku soo bandhigeen dirays cusub oo lagu soo kordhiyay ciidanka asluubta iyadoo dhinaca kalena uu goob joog ahaa maayirka degmada garada mudane faaraxaadan waxana hadaladoodii kamid ahaa waxaan soo booqday maayirka degmada runtii waxa weeye subax khamiisa oo lahayn inspection ciidan lahayn macnaha inuu ciidanku garanaysaa eego runtii waxa ku soo beegantay iyadoo muhiim ay tahay oo dirays cusub oo ciidanku uu helay oo saaka ku soo labistay oo magaranaysaa iska jeegareynayay ayuu ku soo beegantay imaatin kale inoo yimaadeen maxay tahay warbaahinta degmada garada go'an runtii aad iyo aad u maqnaysa Star TV iyo Hon Cable TV oo nala jooga qabadka maxay tahay iska wax qabsada xabsigan uu ku waxay baahiyay aad baan ugu mahadnaqaynaa saakana inay noo yimaadaan oo ciidankii oo si wanaagsan dirays wanaagsan oo qurux badan gashan ay noo yimaadaan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyagana ugu mahadnaqaynaa sida hore ula socoteen waridi kuma seegan xabsiga qolada warbaahinta iyo degmada maayirka degmada waxba waridi kuma seegana waa waxa ogtahay ma ku sheega subax kasta wixii hore u bilaamay warkii meesida wax dambe u bilaamay aad ku arkaysaa saaka warbaahinta gudoomiye waxaanu tusnay adigana aad ku tusayna dhismayaal cusub hadda bilaamay oo ay kamid yihiin guriyihii askarta marka xabsigu xaqan uu ka soo yiri gabagabay in askartiina ay yeesho xuquuqdeedii oo guriyihii aanu dhisno ayay hadda ay maraysaa oo kuwa dalka ay ka bilaameen beertii waqtan insha Allah la kariim marka insha Allah la kariim aad iyo aad inay macaaruf xabsigan uu noqdo iyo wax qabadka ciidanka aan daboolin ee sheegay ayaan aad iyo aad ugu bismillaah suma salaatu wa salaam ala rasuulillah ama bacdi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh sida aad arkaysaan halkan saaka aynu joogno ah xabsigii dhexe ee degmada garadag waxa ciidanka asluubta ee degmada garadag ay ku soo bandhigeen wax qabadkoodii joogtada ahaa ama haru socodka ahaa ay sida joogtada maalin walba ay u qabanayeen taasoo ay aad ugu mahadsan yihiin taliyayaashooda gaar ahaan taliyaha xabsiga degmada garadag ciidanka asluubta ee degmada garadag iyo taliyaha asluubta heer gobolba runtii waxa weeye hawsha ay deegaanka u hayaan ama ay qaranka u hayaan waxa weeye waa hawl aad iyo aad u muhiim ah oo muujisay karti iyo daacadnimo aad baan u boorinaynaa waanu la garab taagaynaa wixii aan la kari karo wixii ay qabanayaan inaanu ka taageerno annaguna ka maamul ahaan waanu kala qayb qaadanaynaa waxaan leenahay hawshiina halkaa ka sii wada wadankiina ayaad wax u qabanaysaan waana loo aayi doonaa insha Allah hawshaas waxaan kula soo dhaweynaynaa dhismayaasha cusub ee imika ay bilaabeen iyagana waxa weeye sidii aad tii hore u wadeen ayaad idinkana Farxaaji Cabdi Nuur TV-ga caalamiga Hon Cable TV gar adag